waxaan soo dhaweynayaa anigoo aad iyo aad u faraxsan xisbiga Tawfiiq waa safarka loogu magac daray samawada ee urur siyaasadeedka qaran ee Tawfiiq oo bilihii iyo barihii la soo dhaafay socdaal ku marayay degmooyin iyo deegaano ka tirsan dalka maantana waxaa si milge iyo maamuus loogu soo dhaweeyay degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud wafdigan oo uu hogaaminayay wakiilka guud ee Galmudug ee urur siyaasadeedka Tawfiiq Cawil Nuur Gufaaco ayaa soo dhaweyntiisa waxa ka qayb qaatay dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmada Cadaado marka waxaan soo dhaweynaynaa oo halkan ku soo dhaweynaynaa xubnaha ka yimid xisbiga Tawfiiq halkan Cadaado aan ku soo dhaweynaynaa ilaa hadda iskale waxaan leenahay soo dhawaada xisbiga soo dhawaado waxa weeye hadda ka hor wadanku ana xoog li ana qoral uu ku jiray waxaan leenahay hal laga gudbo qoraga codka loo gudbo shacabka la kasbado qof kasto dalka dan kale inuu maamulo ama madax ka noqdo codka dadweynaha haraadsado sida xisbiga Tawfiiq oo kale maanta meeshan waxaan u taaganahay oo ah magaalada Cadaado soo dhaweynta xisbiga Tawfiiq xubnaha ka socda ee ka yimid gaalkacyo waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada magaaladan waa magaaladiini insha Allah taala dadkeeduna waxa weeye shacabkeeduna waxa aad bay idin taageersan yihiin marka waxaan leenahay soo dhawaada waa loo baahnaa xisbiga Tawfiiq iyo waxa dadka la mid ah inay yimaadaan magaalada insha Allah taala waxaan rajaynaynaa Soomaaliya muddo waxa hogaaminayay madax maaragtay aan loo fiirin xagga sharciga dadka waxa xaq u leh inay wax hogaamiyaan dadka diinta islaamka yaqaana marka saan ognahay xisbiga Tawfiiq waxa madax u ah dad mashaayikha oo diinta islaamka aad u yaqaana marka waxaan aad u soo dhaweynaynaa xisbiga Tawfiiq waxaan leenahay dadka Soomaaliyeedna maanta fursad ayaa idin furan ka faa'iideysta dad amaanadooda la hubo diinkooda la hubo ayaa xisbigaas hogaamiya codkiina siiya ayaan leenahay shacabka Cadaade hadaan hana aadan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay waftiga ka yimid gaalkacyo ee ka socda xisbiga iminkan ku soo dhaweynaynaa Cadaado waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada magaalooyinka jecel yahay magaalooyinka ka taageersan yahay magaalooyinka ka baahan yahay soo dhaweyntiina iyo marxabeyntiina waxa weeyaan annaguna aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan soo dhaweyno waxaan kulanku wuxuu daaran yahay kulli soo dhaweyn waa soo dhaweynaynaa xisbiga horumarinta iyo dib u heshiisiinta Tawfiiq waxaan leenahay soo dhawaada Cadaado ku soo dhawaada waa magaaladiini waa magaalada idinka jecel yahay codkeedana idinka iska leh waxaan soo dhaweynayaa anigoo aad iyo aad u faraxsan xisbiga Tawfiiq waxaan leeyahay jir oo joog oo waligaa joog culimada maamulaysana Ilaahay xukunka ha noogu dhiibo waa soo dhaweynaynaa Tawfiiq ma soo dhaweyseen ma taageernay waan kaga mahad celinaynaa soo dhaweynta maanta aad noogu samayseen degmada Cadaado intaas haddaan uga gudbo ururka Tawfiiq wuxuu ka mid yahay urur siyaasadeedyada qaran ee diiwaan gashan urur siyaasadeedyada maanta u taagan inuu dalka hoggaankiisa uu wax ka qabto min degmo laga soo bilaabo ilaa heer qaran uu wax ka qabto uu taagan yahay marka labaad marka waxaan u mahad celinaynaa dawladda federaalka Soomaaliya oo maantay gaarsiinaysa wadanka doorasho qof iyo cod taas oo meesha ka saari doonta insha Allah taala ninkii xilka doonayay ee boorsada ku jiray ee boorsada watay ninkaas oo boorso watuu yimid maalintii uu xilka rabu noo imaan jiray boorsadaas lacagta oo ku bixiyana anagu naga dhalaalin jira laakiin insha Allah taala taas meesha way ka baxday waa doorasho qof iyo cod ah maanta waxay haystaan reer Cadaado chance iyo fursad ah cidii ay rabaan in ay soo saartaan cidda kaliya ee maanta reer Cadaado matali karta riyodoodii ka dhaweyn kartaan insha Allah taala ururka Tawfiiq way dhamaanteen soo ma diyaarsan inaan codka sino ururka Tawfiiq dhamaanteen maxaan ahay reer Tawfiiq manaha urur siyaasadeedka Tawfiiq insha Allah taala waa ururkii rumayn lahaa riyada reer Cadaado iyo deegaan walba oo deegaanada Soomaalida ka mid ah waa raggii u soo dhabar adeegay oo u soo dagaalamay oo dalka inta badan ka xoreeyay nimankii la oran jiray khawaarijta waxaad xusiisataan xilliga gobolada dhexe ay ka talinayeen inaanay jirin qof meel lagu dilo luuqa iyo wax la yiraahdo qarax xilliyada ay gobolada dhexe ka talinayeen
waxay xoreeyeen oo intay hayeen ka xoreeyeen khawaarijtii maantana waxaan u soconnaa annagoo sideenii qorigii u sidanna oo dagaalkii ku jirna dhinaca kalena dawladdii inaan hoggaaminno oo dalkii hoggaan kasta aan qabanno waxaana filahayaa labada haddaan isla helno khawaarij dalka waa uga dhammaat wartaa ma isku raacnay wartaa diyaar ma u nahay dalka inaan khawaarij ka xorayno inaan hoggaaminno aad baa u mahadsantihiin cadaado waxay caan ku tahay kelmaddii la odhan jiray cadaado cidi kaama lehe ishaada caadka ka qaad waxay caddayn u tahay degmooyinka kala duwan ee hadda aan ololaha ka bilownay gobolka mudug oo annagu aan ka soo jeedno marka laga reebo degmadii ugu horraysay ee galgaduud ka soo jeedda ee nagu soo dhowaysa ururka tawfiiq haddaan nahay ayada ayaa ku magacaaban ilaahay idankii waxay kaloo cadaada ku magacaaban tahay markii galmudugta hadda dhisani ay u kala go'go'nayd ururo yaryar oo mid walbaaba maamul goboleed sheeganayay oo dana gaara ay mid walbaaba lahaayeen magaaladii martigelisay ee isku keentay ee nasiibka ay u yeelatay galmudug midaysan amniya la wada qaabilsan yahay magaaladii isku keentay ayadaa ah rikoorkaasna ayadaa haysata waxaan rajaynaynaa waa tag fiicantihiina ma tag xumidine maanta ururkii ugu horreeyo meel fagaaraa ku soo dhowayseen waa tawfiiq qalbiyadiinna inuu ku jirana waa muuqataa rajo waxaan qabnaa maadaama aan tagtiina naqaanno inaan noqonayno dalka soomaaliya dadka xukuma kuna xukuma shareecada islaamka dawlad kasta oo la dhisaa waxay ku dhawaaqdaa mar kastaba qodobka koowaad ee dastuurka kow ka ah inuu yahay ku dhaqanka shareecada islaamka haddana markii la fiiriyo ku dhaqitaankeeda afka baarkiisa ma dhaafsana waxaan rajaynayaa haddaa codka siisaan tawfiiq oo ay maanta meesha ugu sarraysa tagaan iyo degmooyinka inaad arki doontaan dadkoo shareecada islaamka isku xukuma waxaad ogtihiin madaxweyne kastoo la doorto ama xildhibaan kastoo la doorto kuma dhiiran karo inuu yidhaa war xeerka ciqaabta soomaaliyeed aan baarno war dastuurka aan baarno xeerarka dawladuhu sameeyeen aan baarno maxaa shareecada islaamka ka soo hor jeeda maxaase waafaqsan waxaan ballan qaadaynaa haddaa xilkaas lagu aamintaan in dib inta fatashaad loogu sameeyo wixii shareecada ku khilaafsanna wax la tuuray laga dhigo wixii aan khilaafsanayna oo bulshadu isku dhaqaysana la daayo haddaan reer cadaado u dhabar adeegin haddaan soomaali qaybteeda kale u dhabar adeegin lama gaarayo hadafka haddii aad doorataan reer cadaado iyo ummadda soomaaliyeed bay ururka tawfiiq soo saaraan waxaa yaraan doonta dagaalka qabaa'ilku ay sameeyaan ee dadka danaha gaara leh iyo khawaarijtu ay dadka isugu diraan meesha wuu ka bixi doonaa biidnillaahi kariim